السلام عليكم ورحمة الله. سو dhawaada saaxiibayaal meel walbaad caalamka joogtaan. waa anigoo ah Khayraddiish kusoo dhawaada falanqeynta asbuuclaha qaybteeni saddexaad haddii ilaahay idmo. lacagtan rabno inaan isla fiirino haddii ilaahay idmo waxaa ka mid ah lacagta ugu horeysa waxay noqon doontaa haddii ilaahay idmo New Zealand USD, lacagta xigtana waxay noqon doontaa Euro iyo CAD. haddii aan ku hormarno lacagta ugu horeyso New Zealand USD habiyaal sidaad arkaysaan lacagtan markaa imaato one day aan joognaa waxay u jeedaan saaxiibayaal lacagtan in ay sameynayso wax cajiib ah. lacagtan maxay sameynaysaa? lacagtan waxay samaysay impulse kadibna waxay samaysay nashqadan waxaa la yiraahdaa ascending channel. waxaa macquul lacagtan inay ilaa halkaas imaato danna halkaas la geeyo. marka sidee laakiin fursadaha hoose ee ku jira hadda aan uga faa'iideysanaa? 4 hour kan geey fursadaha ku jira si aan isku aragno. saaxiibayaal sida u jeedaan lacagtan waxaa ka muuqata fursad cajiib ah run ahaantii. waxay sameynaysaa lacagtan waxyaabo ay hore usoo samayn jirtay. lacagtan haddaa si qaas u fiiriso lacagtan halkan maxay ka samaysay, dan maxay samaysay, okay halkan maxay ka samaysay, dan maxay samaysay. mar walba oo lacagtan ay qaabkaas nashqadaas samayso 9 rollka ay imaan jirtay, hadda maxay samaysay qaabkii kii hore la mid ah. maxaan ka sugaynaa marka lacagtan? waxaan ka sugaynaa lacagtan haddii rabbi idmo in ay noo timaado 90 rollka. qaabkeen marka lacagtan uga faa'iideysanaa? lacagtan waxaa uga faa'iideysanaynaa saaxiibayaal lacagtan waxay ina siisay double top then 3 touch button aad u qurux badan, button with button. hadda lacagtan waxay samaysay wax la yiraahdo impulse. hadda lacagtan waxaan ka sugaynaa si ay fursad noogu abuurto waxa la yiraahdo correction. then correctionkaas dhowr nooc ayuu noqon karaa. waxayna ku xirantahay mar walba suuqa qaabka uu u furmo iyo sida uu dhaqmo. laakiin haddii maaragtay flag noocaan oo noqdo sida aan ka rajaynayno flagaas aadka u quruxda badan, lacagtaas waan soo qaadan doonaa. waxaana kasoo geli doonaa haddii ilaahay idmo markii maaragtay flaga maaragtay flaga noo soo jabsato waxaan ka qaadan doonaa reviewska maadaama ay tahay flag. marka then waxaan ka cuni doonaa haddii ilaahay idmo waa 100 bib, 100 bib oo nadiif ah. marka lacagtan ilgooni u lahaada saaxiibayaal. waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iideysan doontaan haddii ilaahay idmo sida aad uga faa'iideysateen lacagihii hore aan idinla wadaagi jiray. runtii aad aan u faraxsanahay. waxaa ila soo xiriiray asbuucyadii u dambeeyey dad run ahaantii ka sameeyey lacag cajiib ah USD iyo Faransa. waxaan leeyahay ilaahay idin barakeeyo. muhiimadda aan maaragtay aniga aan idinla wadaagayo lacagahana waa intaas. qof walaalkay ah oo Soomaaliyeed si uu uga faa'iideysto muhiimadeedu ugu weyn waa taa. marka saaxiibayaal lacagtan qaabkaasaan ka sugi doonaa haddii ilaahay idmo. oo ujeediin lacagtan wax sharaxaad uma baahno. waxay ku jirtaa maaragtay ascending aad u qurux badan. hadda waxay ku jirtaa impulse. waxaan kugula talin lahaa inaad impulsegan socdo lacagtan aada ka qaadan ee aad ku qaadato lacagtan waxa dambe ay ku siin doonto. ana hadda kulama joogo lacagtan waxa dambe ay abuuri doonto oo maaragtay qaabka ay noqdaan kula macaamil. haddii uu correction aad u qurux badan noqdo cadeynayo lacagta inay sii soconayso. qaata saaxiibayaal sida aan maaragtay hadda halkan hore aan uga soo qaataba ilaa halkaas lacagta inay soo dhacda aan sugaynaa. waxayna imaan doontaa 90 rollkaas haddii ilaahay idmo. 90 rollkaas markay imaato qaabka ay ku imaato ayaan isla arki doonaa. haddii aan isku soo gaarno asbuuca dambe danna lacagtan haddii maaragtay si qurux badan ay noogu imaato oo meel si qurux badan usoo jabsato ayadana waxaan sugi doonaa in maaragtay halkaas hoose la geeyo lacagtan dib kadibna haddii ilaahay idmo waan isla arki doonaa marxaladaha kale ay marto. marka lacagtan qaabkaas aan ka sugaynaa haddii ilaahay idmo.
marka lacagta xigto waxay tahay euro iyo cat. lacagtan run ahaantii asbuuc lasoo dhaafo waxay ku jirta lacagihii maaragtay aan lacagaha fiican ka sameynay oo aadka u dhaqaaqay. haddaan kula wadaago lacagtan asbuucii hore oo ujeedaan taariikhdu waxay ahayd April 29 2020. lacagtan marxalad aad u qurux badan ku jirtay. lacagtan waxaan u qiyaasay laba nashqad in halkan laga celi karo maadaama halkan 1 2 3 maaragtay touch ay ahayd, then 3 touch maaragtay triple bottom and 3 touch, then lacagtan in maaragtay halkaas laga celi karo aan ahayn lacagtan in correctionka oo sii dhooraan doono oo maaragtay noo soo xaqiijin doonto 1 2 3 touch, then halkaas laga celin doono. marka waxaa dhacday in possible kan noola tago oo maaragtay lacagtan 1 2 3 gan ay xushmeyso, then aan halkaas aan ka faa'iideysano. waxaa ka dhacana oo ujeedaan inta bib ee dhaqaaqday. marka lacagtan aan halka hoos ka soo qaadanay run ahaantii 400 oo bib ee lacagtan dhaqaaqday. amazing, waa wax lagu farxo, waa wax aad u wanaagsan. maxay ahaato hadda marka lacagtan maxaa ka suurtoobi? lacagtan waxaa ka suurtoobi kara sida guud lacagtan ujeedan saaxiibayaal waxa ay sameynayso. lacagtan waxa ay sameysay lacagtan dhaqaaq, danna waxay sameysay descending. hadda descending kay jabsatay. okay, maxaan sugaynaa? lacagta wax kale ma sugayna, waxaan sugaynaa inay maaragtay correction hadii macaan noo sameyso, danna lacagtan ay boom double topkaas noo soo xaqiijiso. marka halkaasna waxaa ku jira saaxiibayaal bib aad u cajiiba. qaadato waa 450 bib. haddii maaragtay haddii aad xariif tahay oo maaragtay lacagtan halkaas hoos ka qabatana waa adiga waa 600 waa aragto wax yar dhiman. marka sorry marka waxay ku xirantahay mar walba adiga sida amaarta lacagta uga dhaqanto. marka jaanisada lacagtan ka abuurmi kara haddii rabbi idmo si aan iskula aragno. lacagtan saaxiibayaal waxa ay sameysay waxa la yiraahdo 1 2 and 3 and 1 2 3 1 2 3 plus 1 2 3 plus descending channel aad qurux badan. then lacagtan waxa ay sameynaysaa waxa la yiraahdo impulse. lacagtan sameys lacagtan maxaan ka sugaynaa marka? lacagtan waxaan ka sugaynaa waxa la yiraahdo correctionkaas marka laba nooc wuu noqon karaa. nooc waa in maaragtay correctionka uu iska falaag noqdo oo maaragtay falaag noocaas noo noqdo, danna lacagtan maaragtay dhag saas noogu tagto. aan ahayn lacagtan waxay sameyn kartaa saaxiibayaal hala yaabinina in maaragtay nashqad noocan oo kale noo sameyso bam noo sameyso oo halkan laga cesho lacagtan, kadibna ay maaragtay jag meeshan correctionka noogu shubmo jag halkaas maaragtay saas ku tagto. haddii ay saas sameyso lacagtan maxay sameynaysaa? waa inay ogtahay lacagtan waxay sameynaysaa wax kale ma ahan. adaa arki doonada markaa sawiro jag maxay ku sameysaa lacagtan laba garab iyo madax. that's why I say lacagtan waxay ku aadi doontaa nashqadaas. marka saaxiibayaal sida ujeedaan lacagtan waxaan ka sugaynaa jaaniskaas haddii ilaahay idmo, danna halkaas ayaan ka garaaci doonaa. waxaan rajeynaa haddii ilaahay idmo maaragtay inaad ka faa'iideysan doontaan, lacag fiicanna ka qaban doontaan. please waxaan kaa codsan lahaa inaad 100 mar taxadirto, sababtoo waxaan waa suuq, waxaan waa ganacsi maaragtay wuxuu u baahan yahay maaragtay intaan ku sheegay in ka badan. marka saaxiib indhaha hala furo, suuqa maaragtay hala macaamilo, maaragtay wajiyada oo la imaan doono maaragtay aan ka taxadirno, maaragtay aan mar walba maaragtay isheeno ha korayso. saaxiibayaal aad ayaan ka mahad celinayaa sida wacan ee wanaagsan ee maaragtay aan iskula socono. marka asbuuci lasoo dhaafana wuxuu ahaa run ahaantii asbuuc maaragtay aad u qurux badan. wuxuu ahaa asbuuc maaragtay barakeysan. allana waxaan ka rajeynaa asbuuca soo socda inuu noqdo asbuuc aad u qurux badan sida kii hore ama kasii wanaagsan. marka saaxiibayaal
asbuuc qurux badan ayaan rajaynaa intaan kulmayno video xigo waxaan idinkaga tegayaa cimri dheer cibaado sugan iyo caafimaad taam aad way mahadsantihiin